should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت لي maanta waxaa idin hayaa banana cake ayaan sameyn rabaa waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago. marka waxaan halka ku haystaa waa muuski aan soo fiiqay ayaa halka ku haystaa. waxaa kaloo ku darayaa 3 xabo ukun. waan jijibinayaa horta sidaas u jijibinayaa muuska inuu aad u bisil yahay fiican oo moos bisil inuu ahaado sida uu falgalo ukunta iyo uu la falgalo. marka waan jijibinayaa saas ka dhigay. waxaa ku darayaa 3 xabo ukun, butter 75 gram oo butter ayaan soo yara ilaaliyay ukunta waa soo diyaarsan oo isku daray. waxaan rabaa inaan ku daro waxaan dhahayaa baatamo sidaas ka dhigay. waxaan rabaa inaan ku daro sokor. haatan waxaa halkan igu jiro ukun 3 xabo ukun iyo butterkii aan soo ilaaliyay isku dareynaa oo adkaada intaan diyaarsanay. ukunta waa ukunta teeni weeweyneed 3 xabo intaas ayaa ku daray. waxaa kaloo ku darayaa vanilla sugar sidii caadiga ahayd oo aad keega ku taqaaneen insha Allah iyo baking powderkii. intaas qaadada yar tanaan ku cabiraya laakiin qaadada yar in la eg insha Allah barsanaysaan. waa vanilla extra teeska laga helaa meel walba laga helaa insha Allah. haata isku qasaya haata waxaa ku daranaynaa sokortii koobkaasoo sokor ah ku daray. burkana intaan iyo halfkeeda insha Allah ku darsanaynaa. hadda waxaa ku darayaa baking powderkii. baking powderka gadaal ayaa fiican in loogu daro sababtoo ah maxaa la dhahayaa si uu kugu qamiiro si fiican insha Allah. gadaala mar walba fiican inaad kaga darsatid wuu fariistay dhahayaan dadka haddii wax lagu daro maxaa la dhahayaa markii hore
keega si fiican yani muu qamiirayo. waa kana xaabad waa iyo wax yar oo ah baking powder, qaadada oo ah qaadada shaaha. waxaa kaloo ku darsan doonaa burkeeni. haatan waxaan rabaa saxankii inaan diyaarsado. batar yaraan marmarinayaa. waxaan rabaa inaan ciyaalka u sameeyo. waa cupcake wax la dhahayo. waxay ka jecel yihiin inay yar u ahaado keega, meeshuu ka ahaan lahaa xabad weyn. waxay ka jecel yihiin inuu loo yaryareeyo maaragta, taasay ka jecel yihiin. insha allah waa idin tusinayaa markaa ku shushubayo. bataraan marmarinayaa hadda. haddaa heel jeceshahayna heel ku darso, haddaada jeclayna iska daa, because heelka sidiisiba hadduu daqiiq ahaan waxaa waaye afku dadka galgalaya, laakiin wuu caraf badan yahay. caraf intaana ku filan. faniiliyaha caraf kaga dhan insha allah. burkeena ku daranaynaa hadana. waa kakoo hal koob iyo bar. intaas barna meehe waa bar koreeyo insha allah. waa isla arkaynaa siduu noqdo.
waa wuu la ekaaday. wuu la ekaaday saxankii maasha allah. waa keegini. hadda saxanka waxaan gasanaynaa ofinka insha allah. waxaan kaloo jeclaystay inaan korka ka saaro saliid ayaan jeclahay, laakiin ma garanayo meelaan dhigay. waan haystaa, ma aqaano meelaan dhigay, laakiin meel alla meel u yaala caawa inaan warma u haayo, mana idinku kor raadin kari. marka insha allah waxaan kasoo sameynayaa haddii aan helo keeg kalaan kasoo sameynayaa insha allah. ma ogi meel uu haatan yahay insha allah. adi keeg kalaan kasoo sameynayaa, ma aqaano meelaan dhigay. kaamiradan way socotaa, ma idinku dul raadi kari. insha allah haatan ofinka gashanaynaa sidaa oo socda. sharafkale keegi waa kasoo saaray. keegi sidaan uu kusoo baxay maasha allah. wuu inoo dubmay sidii la rabiyuuna u dubmay. saxankeena saaranaynaa insha allah. wuu diidan yahay inuu ka foqe. waa kan waa bahal jileec oo guduudan oo ujeedaan oo macaan ah insha allah. walaalayaal keegani macaana saana kusoo baxay. waa ujeediin maasha allah tabaaraka allah. waa keeg aan caadi inaba caadi ahaan. waa keeg aan inaba caadi ahaan sidaasuu kusoo baxay. waa wax caruurta aad iyo aad ugu heli doonto haddaa u sameysaan. sorry wuxuu kala daadanayaa, waa is haysta. bismillahi raxmaani raxiim. bahasha wuu iga dhacdhacayaa. muujeedaa saanuu noqday. waa kan
ساسو كسر بحي ما شاء الله تبارك الله. إنه بعادي معهن too soft nice banana cake علىها موس لك سمي بدن كيسنا حنجذي بنانها أو إيه عرفت معايا ساس أو كذا همو يعني إن شاء الله حايدونكو أوجه بنانا كيك وصل هذا هاتنا حايدين لي هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال أصحابتي كل جيني بوحايدين كيك تاجي غير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.